السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gayiga Soomaaliya qodobada aan idiin soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona ciidanka beesha Ciise ayaa la soo warinayaa inay heegankii ugu sareeyay ka galeen tuulooyin hoos yimaada magaalada Boorame cabsi ayaa laga qabaa in ciidanka beesha Ciise ay weerar culus ku qaadaan bartamaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal dhowr iyo 20 saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u sareeya ayaa laga dareemayaa deegaano hoos yimaada magaalada Boorame iyadoo ciidanka beesha Ciise la sheegay in halkaasi ay dhufayso ka qoteen odayaal dhaqameed ka yimid magaalada Jigjigo oo xaldoon ahaa ayaa ku guul dareystay in ciidanka beesha Ciise lagu qanciyo inay dib uga laabtaan tuulooyinka Jiddi Galmadoobe Dixda Sheekh Awaare tuulada Heemaal tuulada Habaas tuulada Durdur aaga Buurta City iyo deegaanada hoos yimaada taa beddelkeeda Ciise waxay ku andacoonayaan inay xaq iyo xuquuq u leeyihiin inay isdifaacaan aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka tashadaan Ciise wuxuu shuruud ku xiray in uu deegaanadaasi dib uga laabto isagoo shuruudaha ka dhigay in marka hore la ogolaado in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo marka xeerka buuga Ciise la soo bandhigo kadib ayay Ciise sheegeen inay ka baxayaan tuulooyinkaasi oo ay dib ugu celin doonaan ciidanka beesha Samaroon inkastoo xilligan lagu jiro bil Ramadaan oo ilaa hadda wax dagaalaha aysan dhicin haddana xogta macluumaadka iyo wararka aan helayo waxa ay tilmaamayaan in xaaladdu ay marayso meel aad halis u ah sida ay tilmaamayaan ila wareedyo muhiim ah dhowr iyo 20 saac ee la soo dhaafay waxa dhacay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u sareeya oo la sheegay in ay xaaladda gaarsiin karto meel aad halis u ah saraakiisha aan la hadlay qaarkood waxa ay leeyihiin aragti waxa jirta ah in ciidanka beesha Ciise aysan ka bixin gobolka Awdal deegaanada ay ka qabsadeen sababtoo ah dhulka waa la wada dagaa Ciisuuna waa dagaa Samaroonkuna waa dagaa in marka Samaroonku ay isla haysiiyaan deegaan iyagu aysanba markii horeba xaq u lahayn inay sheegtaan ayaa la leeyahay xaaladda waa ay uga sii dartay oo meel xun bay gaarsiisay waxaan la hadlay dhowr qof oo odayaal ah oo xaldoon ah oo xaaladdan dabcan ku jiray si aan wax uga weydiiyo arrimaha hadda taagan waxayna ii sheegeen inay u badan tahay in ciidanka beesha Ciise aysan deegaanadaasi ka baxayn taa beddelkeedana ay qaadayaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo xaaladda uga sii daraysa haddaan si degdeg ah xal loo helin sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno waynu arki doonaa saaxiibayaal wixii ku soo kordha markana waxaan fiirinaynaa wararka bariga dhexe Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil safiirka Mareykanka Israa'iil ayaa sheegay in safaaradaha Mareykanka aysan ka jirin xaalad uu saamaxaysa in ay daad gurayso muwaadiniintiisa Mareykanka ama ay siiso gargaar toos ah xilligan hadalka safiirka ayaa dabcan imaanaya iyadoo oo ay sii kordhayso xiisadda amni ee gobolka ka taagan Mareykankana waxaad moodaa in uu soo gaaray khasaare baaxad leh sida in qunsuliyadii Riyaad la duqeeyay la burburiyay Bahrain ay ka socdaan kacdoono oo safaaradoodii la weeraray Ciraaq safaaradii Mareykanku uu ku lahaa waa la weeraray Mareykanka saldhigyadiisii xaaladdu aad bay u xun tahay dagaalka uu galayna dad badan waxay aaminsan yihiin in iyadu ay dabcan qaaday Mareykanku iyaguna ay xaaladdu ku dambeyn doonto warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in difaaca hawada ee dalka ay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa'iil ay leedahay nooceeduna uu yahay Hermes iyadoo oo ay ku jirto hawada gobolka Isfahan mas'uuliyiinta Iiraan ah ayaa sheegay in daroonta la burburiyay isla markaana la qarxiyay dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee dalka Kuwait ayaa ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah loo xiray sabab la xiriira xiisadda amni ee ka taagan gobolka bariga dhexe Kuwait ayaa noqotay bartilmaameed toos ah oo ay ka dhacayaan gantaalaha iyo daroonka Iiraan safaaraddu ma aysan shaacin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khatarta jirta iyo in dib loo howlgelin doono nidaamyadii difaaca ee THAAD ee halkaasi yaalay dhinaca kale warbaahinta Iiraan iyo warbaahinta Israa'iil waxaad moodaa in xifaaltan xoog leh oo ka dhaxeeya marka laga hadlayo arrinta bariga dhexe warbaahinta Iiraan waxa ay sheegtay in nidaamyada difaaca hawada ay ka hortageen diyaarado duqeyn fulin lahaa oo cadow ah magaalooyinka Tehran iyo Karaj lagana hortagay isla markaana la soo riday dhammaan waxyaabihii halkaasi
looga hortegay ama diyaaradihii aan daroonka ay halkaasi dabcan xaaladdu ay halkaasi maraysay. dhinaca kale ururka xisbullah ee lubnaan ayaa la soo warinayaa inuu isna ku dhawaaqay in ay si adag u taageeri doonaan duulaan weyn oo ka dhan ah Israa'iil, kaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in xaaladdu ay hadda marayso meel aan waxba laga qaban karin. warbaahinta iyo falanqeeyaasha ku dhow miiska siyaasadda ee Iiraan ayaa si furan u soo bandhigay in taageero weyn la gaarsiiyo xoogagga xisbullah iyo xoogagga Iiraan oo iyaguna dabcan isku diyaarin doona duulaan weyn oo ka dhan ah Israa'iil sida ay wararku tilmaamayaan. Mareykanka ayaa dhinaca kale wuxuu la tacaalayaa weeraradan, yacni Mareykanku siduu filayay si ka daran baa soo baxday. madaxweynaha Mareykanka oo ka soo baxay kulan degdeg ah oo dhanka amniga ah oo la qaatay saraakiil ciidan ayaa wejigiisa laga dheehan karay sida uu uga carooday waxa dhacaya, isagoo sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah. Iiraan iyo Mareykanku waxay kala sheeganayaan guulo waaweyn oo iskhilaafsan. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay ku dhawaaqeen in ay howlgab ka dhigeen saldhigyada Mareykanku uu ku lahaa dalka Baxrayn oo noqday mid aan shaqo qaban karin laga bilaabo hadda, burburinna loo adeegsada diyaarado daroon ah. Mareykanku isna wuxuu leeyahay maxaan meesha ka saarnay lafdhabarkii ciidanka ilaalada kacaanka, waxaana burburinay xarumihii taliskii saraakiisii ciidamadan leenay. yacni niman saas duqeyn u fulinaya ma u malaynayo in la baabi'iyey, inkastoo de khasaaro uu jiri karo, haddana khasaaraha ugu ballaaran dabcan hadda lama dhihi karo Iiraan waa uu gaaray. si walbaba ha ahaatee hadda xaaladdu bariga dhexe waxay maraysaa meel aad halis u ah. dadka arrimahan la socdaana waxay leeyihiin haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dabcan waxaa soo bixi doona xaalado adag oo tan ka daran, taasi oo aan ugu dambeyn la xallin karin lagana hortegi karin sida ay dad badan aaminsan yihiin. dhinaca kale Canada ayaa xirtay safaaraddii Riyaad, waxayna u muuqataa in Sacuudiga arrinta ay ku sii adkaanayso oo ay noqotay furin dagaal. waxaas oo dhanna waxaa sabab u ah saldhigyada Mareykanka ee halkaasi ku yaala. Mareykanku saldhigyuu ka dhigtay dabcan wadamada bariga dhexe. okay, ma xuma ha ka dhisto, laakiin waxay ahayd baa la leeyahay inuu Mareykanku difaaco dalalkan hadda uu saldhiga ka dhistay, iyana ma socon oo dabcan muusan difaacin. isku halayntiina dabcan hadda waxay noqotay hal bacaad lagu lisay. saaxiibayaal waa mahadsantihiin, soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. sharaf iyo karaamo channelka ku soo biir, subscribe dheh. wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno ayaa dabcan mar walba la socon doontaan. aragtidiina qaybta commentiga nagu reeba. meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal. wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno ayaa si maalinla u heli doontaan. hadday tahay markii kugu horeysayna channelka subscribe dheh, like garee muuqaalka. aragtidaada qaybta commentiga waxaa kaga dhiibtaa si aad aragtid xiisadda bariga dhexe, cidda guushu ay ku dambeyn doonto iyo xalku wuxuu ku jiro. soo dhawaada saaxiibayaal.